أصلك إبليس إبليس وابا جنك دهسون وحانو إلهي أبوري آدم كهر وحان لغا أبوري دبه العاية وانا عنان وانا عبان سيدو كلوه ترمان سيدا آدم وكله sidoo kale muslim yagal ay leeyihiin inta la abuurintinka waxa la abuuray laba noore oo la kala oran jiray iyo bin waxaana ku noqolayeen dhulka kadib way kibeen oo way fasaadeen kadib Allah subhanahu wa ta'ala ayaa jinkay u saliday kadib jinkii ayaa gumaaday oo dhulka ayaa ka cirib jireen kadib jinkii ayaa dhulkiisa ku antiyay in mudahna markay jinku noolaan dhulka kadib jinkii ayaa iyaga laftarkoodina kibray oo dhulkii ay ku fasaadeen kadib Allah subhanahu wa ta'ala ayaa iyagana u soo diray malaa'ig malaa'igtii ayaa ku dhakado jirtay wuxuudiba intii baxsatay oo fakateena waxa u carartay xagga badaha iyo jasiirada iyo buura kadib wax malaa'igtii dhulka qaadeen wiil yar oo markaa dhashay waxaana geeyeen xagga samada kadib wiilkiina waxa loo bixiyay asaasiil waxa noqday mid cibaado badan oo alla ka cabsi badan iimaankiisuna aad u xoog badan yahay saas daradeed waxa laga dhigay maamulka samadan dhulka yaani samadan hooseena soo yeegisa in xigta kadib markii la abuuray aadam oo wali nafta lagu afufin ayaa asaasiil oo wareegay samada ayaa waxa arkay aadam oo wali nafta lagu afufin kadib intuu ku warwareegay ayuu gartay inuu yahay mid isku daloola kadib ayuu dhahay haddii aniga la ka dhigo kadib ayuu ogaaday kan inaan la mihayn isaga oo labadooda midun madax looga dhigi doono kadib wuxuu yiri haddii aniga madax la ka dhigo wuu ku wajin doonaa haddii madax la ka dhigana wuu ku casiy doonaa kadib markii nabi aadam nafta lagu afufay ayuu Allah subhanahu wa ta'ala malaa'iktu dhan amray inay sujuudaan aadam kadib malaa'iktu dhan ayaa sujuuday illa iblis mooyaane kadib iblis oo santaagay ayaa wuxuu yiri ana khayrun minhu khalaqatani min naarin wa khalaqatahu min din aniga ayaa ka khayr badan oo wax diga abuurtay naar isagana waxaad ka abuurtay dhoobo kadib nacdashaale ayaa ku dhacday xilku ka hayay samadana waa laga xayoobay oo waa laga qaaday magaciisi asaasi lahaana waxa loo bedelay iblis samadina waa laga soo tuuray kadib balan ayuu qaaday balamihii qaadana waxa kamid ahaa inuu aadam iyo awlaadiisaba uu wajin doono oo adduunyadana uu ku dhibi doono aakhirana uu narta ku wajin doono oo isaga saaxiibkuna noqon doonaan iblis Allah nacdale wali uu nool yahay waxa uu sugaya waqti cayiban waqtigaas waa markii qiyaamuhu dhaco bada ayuu kursi dhigtay oo halkaas ayuu marba ciidan uga soo diraa si dunida qulub iyo qallaaso uga abuuraan magaca iblisna waa quusasho yaani wuxuu ka quustay raxmadii ilaahay waxaan saas dhahay mufassiriinta waxaana daliishanayaan aayada ah waaba iyagoo ka quusanaya naxariista ilaahay markii iblis arkay inuu joogo midaan laga soo noqon karin ayuu ilaahay hortiisa balan ka qaaday oo waxa uu yiri adduun iyo aakhiraba aadam iyo caruurtiisaba waan hoojin doonaa waxaan ka dhigi doonaa aniga oo kale iyo qaranigay sujuuda aadam ayuu ka soo saaray jannadii quruxda badneed iyo nimcad u dhex badaaranayay isagoo qurxiyay geedkii ilaahay ka xaaraantibeeyay waxaanu saas balan ku qaaday inuu aadam iyo caruurtiisaba u duubsan doono in yar oo ilaahay naxariista mooyaane inta yar ah inta ilaahay rumaysay sidoo kale waxa balan ku qaaday inuu siraadul mustaqiimka u bartamo fadhiisan doono oo xaqa uu ka leexin doono dadka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inaga digay iblis isaga ayaa wixii nooxun iyo wixii noo wanaagsan ba Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku dhahay inna shaytaan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytaanku cadowgiina ee cadow ka dhigta hadaba daawada qaana sad iskaga ilaalin lahayd shaytaankaas iyo ibliiskaas madax xun leh Allah nacdale